wax kale kama hadlaan waa personal attack qofka wajigiisa sida ilaahay u sameeyay xataa wax laga sheegaa wajigan luuqa dhigay kasoo carar lugahan hadaa ku soco karta boodboota ugu darin balaayo waxaan dhacaynin malaha ma fahamtay Soomaalida mararka qaar waxa leedahay social media waa lagula qaldabe because ayaga waxa waaye qaabka loogu talagalay uma isticmaalaan xataa mararka qaarkood ma yaqaanaan war adiga qofkan adiga ma dhalin ma sameysano qof weyn oo maxaa la dhahaa intaas la eg wixii asaga u gaara oo ku qanacsan yahay oo ka hadlaya haduusan adiga ku dhaawaceynin ma jirto sabab maxay ahayd ugu hor imaadid ama ku weerartid just fiirso ama dhageyso ama hadaadan rabin ha dhageysanin marka taasaan ka leeyahay groupka ku jiro waxaan leeyahay shaashada garaaca shaashada in la garaaca waxay fududeynay in dad badan sii gaaro ma fahamteen Jamiilo waxaan u maleynayaa inay mashquul tahay marka waan ku soo wareejinayaa نوال حسن سؤال يودي حسن هاي حسن سبرين هذا حغايران مشغول نقday waa ka dafaa shukriye garaal ahaada xogayran busy ahay laakiin waa idin la socdaa waa idin dhageysanaya microphone la iga xiran marka markaaga ku soo maadaama aad qaad والله شكرا شكر أي عاوة maaragtay noo furtay waa horta arrin loo baahnaa in laga hadlo sababtoo arrimahan hadda wadankan iyo de Yurubtaba hadda ma aqaan ama Soomaaliyaba way ka jirtaa dad gooni u raran way jiraan oo raba inay dadka rartaan ama ba de kuwa la iska raran oo waxba aan ogeyn oo iska masaakiin way jiraan oo sida u maleeya xaalka qaarna way iska diidaan in la rarto marka meesha colaada ka dhalata marka dadka narcissistiga oo jecel inay dadka rartaan ama ra'yigooda ay dadku hogaamiyaan runtii way qaldan yihiin laakiin ayagu uma maleeyaan inay qaldan yihiin inay qaldamaan uma maleeyaan waxay u maleeyaan adigu qaldan tahay basically qofka hadii uu ku yiraahdo ani waxaan ma rabo adiguna aad tiraahdo hadaadan rabin aniga diidan tahay iyo aniga diideysa iyo macnaha fikirkayga ka soo horjeeda iyo waxyaabaha qofka narcissistiga lagu garto marka sheekadan oo maaragtay hadda Yurub waxa lagu leeyahay naagba gaari wadata markay gaari wadato waxay ku leedahay mid baa rabtay inay marka ku rarto waxay ku leedahay kaalay ilmaha markaad iskuulka geyso adeeg baa ila soo qaadaysaa qofka marka maalin baad wadaysaa adeegiya la soo qaadaysaa guriga geynaysaa hadana maalin kale ku leedahay kaalay hadana maaragtay shopping hebel ibay hadana waa geynaysaa hadana waxay ku leedahay muxuu ahaa kaalay meel heblayan islaan heblayan soo tacsiinayna igey dad marka dhowr jeer oo qofka qaaqaado waxay ku leedahay maalin baa waxa leedahay maanta ma imaan kare maanta adigu istabro ma seen bas ku raacadaaba joogo baabuur wate macnaha rarashadeedii qofkii isxaankii loo sameeyay wuxuu ka dhigay rarasho macnaha ma fahanta هل سؤال أنا وأنا كويدي جميلة هدي أديد ما حد عاي تسألهن هذا أديد واحد عاي قفتي وحي كلها داي ما أنا كوبا هم بعد قاعد بس إسارتي ما أنت وأنا السنة يا سي كنا السنة أنا أبو مال أصعد إقراء عن كورسي كنت دي أديك مع أنا أديك صاحب أنا هاي وها أنا كورا أنا يشد واي war odagiyaa ii jooga maanta nooc kamid ah adoonsiga waa Jamiilo Ingiriiska alaabaas aad ugu badan tahay la dhahay maanta waa barnaamij laga hadda xataa tiraahdo maanta waa barqo odagi baan quraac yar uga soo tuuray cugulada may odag waxa tiraahdaa McDonald's simro odag sandwichka odag intu yaar qadaad meesha inta u soo sartay ka soo tag laakiin ma dhigi kara Jamiilo taas haddaan su'aalka weydiiyo ma dhigi kara taas waa jid adiga isku furtay oo inta badan dadkeena Soomaalida ereyga no ama maya ama isticmaalaan inta badan ayagoo xataa culays fara badan hayo ayagoo eegayaan qofkan walaalka ama asxaabta ay isleeyihiin uu ka xumaanin ay u sameynayaan taas ma yahay qofka fiiri adiga waa inaa wax garataa xasan waa inaa wax garataa fiiri qofkan maanta haduu isxaan ku sameeyay oo hadana bari ku sameeyay oo isir waa hooyo single mother cid caawisa male oday ma hayso cidna ma haydo adeegii maanta intii cusleed la soo qaad biyihii la soo qaad adeega cuslaa guriga la soo dhig hadana bishiiba mar haduu ku caawiyo ama dhowr maalmo kale uu ku caawiyay wixii ku dardaran ku soo qaaday balana meel ku leedahay ku geeyay miska raranaysaa soo lama rabo qowna wax garatid inaa wax garatid oo tiraahdo war qofka waa fiican yahay wixii fiican la iska mahololobiye u kaadi ma garatid
aad hadduu qofka laakiin uu garan waayo adigaa la rabo markaas inaa adiga laftirkaaga sa uga dabaan leed aad samaysid sababtoo ah haddaaba dabaalato waa wejigaaba lagu bedelaa waxaa lagu leeyahay baryaha ma fiicnid qof kale ma ku xiratay aad may horta taas horta dhaqanay naga tahay ايش waxaa jirtay hadaa xasuusataan Axmed mayadan ka dhintay marnahay maqasheenin xasan meesas ma kul cilintaan u maleynaa daa qaldaneen ya dad mayada ka dhinto way jiraan laakiin ma aan oo kaliya xataa asxaab ma waxay soo galaysaa arrintan hadda ay Jamiil ka hadashay familkii soo galaysaa iyo walaalahay soo galaysaa tusaale haddaan soo qaado annaga qurbaan joognaa dadka Afrika joogo inta badan waa caawinaa oo waxbaan u dirnaa walaalka ha aado in adeerka aado abtiga ha aado waxbaan u dirtaa marka mar walbana ma adiga ma tiid qofkii oo shalay ma tiid waxba iska kaa bedeli karo xaaladaha Yurub waa ognahay waa kor iyo hoos marna kor buu aadaya qof marna hoos buu soo aadaya oo minus ayuu galayaa marka waxaa dhacaysa qof aad lacag bartay aad lacag u diri jirtay oo aad isdhaysi bal qofkaan caawi haddii ay mar wax si kaa noqdaan ama xataa ama saaxiib ahaado ama walaal ahaado wuxuu kaaga dhigayaa inay sharci ahayd lacagtaas inaad u dirsid aad u weyn inuu kugu soo qayliyo kugu soo aflagaadiyo ku yiraahdo maxaana siin jirta adiga intaasoo san adiga wax siinaa xataa marka taas waa horta dhaqankeena ay ka mid tahay in la baabi'iyana way fiican tahay waxaana hadda ka hor aan rabay inaan mawduuc ka sameeyo arrintaas oo ah in qofka uu barto maya uu barto inuu dhihi karo mararka qaarkood inuu maya dhihi karo maya waxa joogtada ahaa keenaya qofka hadda waxba loo joogtay inay mar haadis wax loo diro uu la qabsan lahaa laakiin haddii loo joogteeyo joogtayskii uu rabaa soo ma aad ha marka waxa fiican asxaabaha dadka aan qaraabada dhow ahayn waa asxaabaha kore iyo friendska inaan la joogtayn haddii la joogteeyo maalin kasta waa laga rabaa laakiin haddaad adigu marmarkaad u garato aad wax ku tuurto maalinkaa u dirto waa farxaya aad mal dhigi karaa marka Jamiil arrintaas oo dhaqaalaha iyo raalaha shukri iyo tan oo rarashada oo qofka markii qofka uu hadii mar isxaan u sameeyo uu ka dhiganayo markii qofkii inuu maalin kasto oo inuu u sameeyo isxaankaas uu yahay sidee marka lagu xallin karaa arrintaas iyadoo qofkiina la xumeynaynin oo walaalka ama qaraabada ama asxaabta ahaa adigina adan baa leedahay qof weyn baa tahay mas'uul baa tahay oo aad hawshaada u qabsan lahayd qofkaana uuna kaaga xumaanaya sidee dhaxdhaxaad lagu noqon karaa waxaa lagu noqon karaa halka waxa lagu noqon karaa waxa qofka sidaada wax joogta inaad barin qofka inaad tiraahdo okay goorma ku daran adeega ku soo qabtaa okay once a month once a week waxyaabaha culus oo aadan qaadi karin oo kale waa ku soo qaada maalinkaas gurigan ku keenaya maalin aad meel ballan ku leedahay cunuga ii keenso waa ku haynaya يعني every day inaad baxdo meel aad cunuga ii keento macquul ma noqonaysa ani howl baa iga dhacda ilmo kale ii jooga keyga waa qaadan lahay magaaladan geli lahaa laba cunug iskuma wadi karo maalinkaa balan leedahay muhiim ay kuu tahay ii keenso cunuga waa kuu haynaya maalinkay muhiim kuu tahay adeegii wixii culus waa kula soo qaadaya maalinkii aad turjumaan u baahan tahay haddaan luuqada kaaga fiicanahay waa kuu turjumaya wax weyn maaha laakiin bahashii haddii la joogteeyo oo la yiraahdo dee adoo howlo kale kaa dhacan lagu yiraahdo kaalay haddaad kaalii weysana xaalku isbedelay ma fiicna marka waxaa fiican qofka in limit loo sameeyo limitation oo la yiraahdo okay maalin heblaaya anigu waqti haya qofka xataa asiga inaad choice ka siiso ma fiican anigu maalin heblaaya waqti haya maalinkaa iga faa'iideyso saacad heblaayo iyo saacad heblaayo hadda waqtigiisa qofka ku imaan waayo ama uu dhaafo waxaa leedahay dan kale aan lahaa howlo kale iga dhaca adigoo xataa dan lahayn sababtoo ah qofkani maraa dan leedahay u imaanaya hadduu marka adigu maalinkii dan lahaa kaa faa'iideysa waa inuu marka uu gartaa qofkan inuu asigu dan leeyahay qofkaanu dan lahayn maalinka adigu dan leedana waa in adiguna dantaada garataa qofkaas waa inuu dantiisa gartaa marka wuxuu samaynayaa qofkii haddaad limitation u samayso inuu yiraahdo okay xasan maanta waqti haya meeqa saac 4 saac afartii inuu isku soo aadiyo okay xasan wuxuu yiri 4 ilaa 5 saacada iga faa'iideyso marka waa inuu qofkii waqti hor ka soo hormaraa asoo appreciation ka sameynayo leedahay ay appreciate inaad saacad siiso ila soo adeegto laakiin hadda qofka waxa laga badiyo ma garanayo qiimaha ay u leeyihiin والله وارن اد wanaagsan wanaaga badan marka waa dhibkaas uu keenaya wanaag badan adiga wuxuu ku keenayaa dhibaato ku keenaya adiga isxaan ka tahay ayaad hadhow qofkii isku weynaysaa waxaan rabaa xasan inaan weydiiyo waayada dambe TikTok active ka ahayd waxyaabaha sida gaarka ku saameeyay oo ku saabsan waxyaabaha aad soo post gareysad
maxaa is leedahay wuu ugu adkaay والله horta waxyaabaha la soo post gareeyo iska badan yihiin mararka qaar waxaa iska jirto waxa adiga caadi isaga soo post gareysay ama hees ama waxa dadka inay u qaataan inay adiga aad iska hadlayso kale tusaale ahaan mararka qaarkood qalbigeena jacaylka mar walba uu ku beeran yahay uu ku jiraa haddaad qof jeceshahay markaas oo aad arrimihii jacaylka ku dhex jirto oo xiriir aad samaynaysid iyo haddaa aadan samaynaynin oo jacaylku nagu dhex jira waxaa laga yaabaa mararka qaarkood hees ku qancisay oo jacayl inaad aragto oo markaas aad iska soo duubto oo heestii adigoo ku farxsan aad social media soo dhigto oo markaas dadkii ay u qaataan in adiga xaaladan ay ku heystay heesta haddii calaacal tahay haddii ay tahay farxad hadday tahay oo su'aal lagaa soo weydiiyo lagu leeyahay war maxaa kaasi ah war see wax noqdeen oo ma arkino inay wax kugu dhaceen camal oo kaleeto lagu soo weydiiyo way dhacdaa arrimahaas oo kaleeto aniga waxaan leeyahay horta dabeecad waxaan leeyahay an qof bini aadan uma joojiyo dantayda aan waxaystaa inta badan waa xushmad badanahay dadka waa qadariyaa waa qiimeeyaa laakiin qofna ma arkino fikirkayga ma bedelo inta badan oo fikirkayga waa ku adkaystaa saaxiibo qaas waa leeyahay oo igala taliya markii aan wax qaldo idhaahdo xaggaas waa ka qaldan tahay ka jooji waa qaadanaya arrintaas anigana saaxiibo saas oo kale aan kala taliya way jiraan laakiin dee social media wuu iska dhib badan yahay dadkana dadkii hore ma ahan sidaan la soconno waagii hore dadka waxay ahaayeen qaybay kala lahaayeen dadka saxafiyiinta gooni bay ahaayeen fanaaniinta gooni bay asxaab u ahaayeen dadka caafimaad ka shaqeeya gooni bay ahaayeen dadka ganacsatada businesska gooni hadda wixii isku dhexyaac ay noqdeen dadkii oo dhan isku fac ay noqdeen qurbaha markii la yimidna horta waxaa la noqday isku wada daraja la noqday because waxa waaye mararka qaarkood markaad qofka qobre abuu u yimaado hal meel laga wada bilaaba xiraa la galaa kaama la galaa sharci raadisaa la galaa kabacdina xamaaliyaa la galaa wixii waxay noqonayaan marka dadkii ma xushmad ma jirto oo qof walba qof kaleeto ka sarreeyay oo aqoon ahaan iyo waayo-aragnimo ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo diin ahaan xataa ma xushmaynayo horta wax ma maqlay hadda si fiican ma maqlaysaa fiican ku maqlaa yaa waa ku maqlaa abay nawaalay ku soco walaashay aadan ku maqlaa xasan wax fiican oo ka hadlay waxyaabo badan oo taabtay arrimaha qaarkoodna waa midaan hadday tidhahaya camal oo video hees yaro ku qancisa aad iska arkaysaa adoo isbaashaala iska soo saaraysaa oo leedahay social media tiktoka way ka shidan tahay heestaani bal ma saarataa waa garta faaduma soo dhowo asxaab fara badan shaashada garaaca waa mahadsantihiin barnaamijka caawa aad ugu badan yahay nawaalay markale ku soo noqo adaa ku watay codki maanta waxaa u malaynaysaa inuu nagu ciyaarayaa mudda marka arrimahaas waa arkay aniga dhowr jeera maaragtay la isoo wacay loo sheer gareeyo ama maaragtay videoga loo sheer gareynaa markaasaa lagu soo wacaya war maxaa kaa qaldan war maxaa kugu dhacay gabar professionalaad tahay gabar scientist aad tahay maxaa social media ku dhigay maxaa ka helaysaa maxaa meesha ka saaraaba daliid taabta marka waa arkay arrimahaas aadaan u arkay waxaana waa iska wax fan ahaana isaga soo gashanayna annagana leenahay waxyaabahan ma aragtay waa dadka dhan soo gashteen way qurux badan tahay hees shidan waaye iska gasho unbay naga tahay oo ma ka aha qafki waxay ka tahay yacni waxaani waa socdaahe waa quruxay kula noqdeen waa soo saaratay ma fahamta si fiican waa garta wallaahi aad anigoo marmaraan saas oo kale heesahoo kale iyo waxyaabahan xiiseynaayo facebook wax isaga soo qorqoraa asxaabta badan oo facebook ku leeyahay tiktoka marka waa aniguna wajaanta dhinac bay iga soo gaartaa marka waa fariimo badanaa soo dhacdhaco oo naqdin ah maxaa dhacay see wax ku wadaasaan ma ahayn sidan waa laga fiican yahay marka caburin dadban ayaan u fahmay marka caburin dadban inay tahay ayaan u fahmay marka anagoo dad iska waaweyn oo maasha Allah iska mas'uuliyiin ah mahadsanid cabdikariin soo dhow walaalkay marka xeendaabka nagula aamusinaayo marka waxaa waaye waxyaabaha saameynta leh ka mid tahay alleen hoohi kuma bogsiiso amigu warwarka ma biyo halaacal wax kuma keene adduun hawli kama dhammaatee